وأنا كلنا مدحوين هل كل جاك راحيو إلهي كاهستا وحوي تبدعه يعد على الطريقة دقيقة كيساق عرقتني مياني ودا هذا هنا ذو يدو تليها عيدا كقرنكا وزير كاريمها جودها كجاشان ديجو والله حساب تنتانو ويديسان وحكون عيدك لفتين وانت سويسان حكومة ده سيدي وطنك وحكون بعين من الله لما يلو ثاني يعني بدقان ورم هاي يدبل كمسك كلا شو قلت لك إيه هذا دولار أبدا حكين عامر لورد شرينا دفور كويس كتوت وانو دكتور هل كان يسيبك كتير إن كان يريكم مشنير كان فرحة كقاد كنت أنا تسارتين تشوتي xildhibaan axmed nuur guruuj oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay khilaafka ka dhex xaloosan ama ka dhex taagan xubnaha komishanka doorashooyinka waxaan u sheegay inaanay ahayn waqtigan in madaxweynuhu guddi u magacaabo oo guddidaasi lagu xalinayo khilaafaadkooda balse ay tahay in guddi loo saaro wixii ku dhacay ciidanka qaranka sidoo kale waxa uu xildhibaanku ka hadlay sheegayna inaan deegaanka uu ka soo jeedaa aanay haysan saamiyadii ay ku lahaayeen xukuumaddiisa وكان حلبانك وكهذا يا أرنت أسيار ما كله. سيدنا الله وضع صعنا وضع كوش وكسر شري مطلع بس النضوضة خلاف سياسية أو كوساب سنة دور الشوين كسيدنا وعيان يسيدنا وكله الريان خلاف هو حقوق بسمي أحساب تقرنك وحقوق بسمي قلوياس تقرنك وحقوق بسمي قبائلك وحكذا تي مرم بدن وحكذا شيء بوق بدن وحكذا شيء طوط بدن waxay gaadhay heer dee nabadgelyadii qarankuba khatar gashay oo gacan ka hadal iyo dhimashaba way ka timi hase ahaatee arrimahaasoo dhan waa laga heshiiyey waanay dhammaadeen haddii ay golayaasha tahay oo golaha wakiiladu u dambeeyo si aqlabiyada xeerkii lagu heshiiyey uu ansixiyey hadday tahay xisbiyada iyo hadday tahay madaxweynaha ogolaadaba arrintaas soo dhammaatay khilaafka komishanka ka dhacay ما هين بيت قونية أما سي شخصية وتاجن كوميشن كي أرمى سنبول واحد الصلاة وحانو كم ده قيب الصلاة تقرنك أو قيب كاها حسا تقول دي قرن كبير شيء أرمي ليسكو هايين اللي جود بي وحيا هيد إن كوميشن كنا ده قرن خلت سان قاضو وما دام الموضوع اللي ليسكو هاي بي مكايد مادين ده شغلين كوي يلي تيرجرو وضاي كلام haddii iyagu intaa garan waayona waxay ahayd madaxweynaha oo ah odayga guud ee qaranku inaanu arrintaa guddi baadhiseed iyo guddi kala toona u saarine inamada uu isugu yeedho gacanta uu isu saaro arrintaa ka hodeeyo iyagana yidhahda hawshiina qabsada maxaa wacay dee waxa la isku hayeyba waxay ahaayeen doorashooyinka sidee baa jadwalkooda loo mideynaya arrintana way dhammaatay wax hore kale oo meeshaa ku jira ma jirin arrinkana inuu la dhamaadaaba ahayd hase ahaatee markaanu arrintaa hubsannay markaanu u fiirsannay markaanu degdega iska ilaalinay markaanu dhiber maantay dhammaan markaanu lahayn saa dambay dhammaan markaanu lahayn balukaadiya waxaa noo muuqatay in weli xukuumaddii iyo madaxweynuhu ku sii socdaan arrintii xubintaa komishanka ku saabsanayd inaan weli la dhammaynin oo weli guddidii baadhistu hawsheedii wadato waxaanu isweydiinaynaa la yaabanahay maxay arrintani ula dhammaan laadahay qadiyadan ay ka tirsaneed ee dhamaatay ee halkan ee gooniyo ku jira madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne waxaan u malaynayaa guddida maanta lagaa sugayo waad garanaysaana waan garanayaa ummaduna way garanaysaa lagaama sugayn guddi inan yaroo komishaneera baandha lagaama sugayn guddi komishan dhex gasha waxa lagaa sugayey guddi madax bannaan oo golayaasha qaranka iyo dadka khabarada ee waddanka ka mid ah oo baadha wixii waddanka ku dhacay adduunyada baabaday iyo xuduudka lumay iyo ciidanka dhintay iyo dhulka la qabsaday guddidii baadhi lahayd baa laga sugay adduunyada taloo kale way ka dhacdaa waddaana la maraa 1967 waddanka masar waxaa ku dhacday guuldaro madaxweynihii waddanka uu iscasilay جمال عبد الناصر وزير كي كان شاندك عبد الفتاح عامر لورن ترينا عبد الحكيم عامر لورن ترينا دفور كويس كتوت وانو دكتور هل كان يسيبك كتير كون يا سقال بقول يا تطبات يا صدح دي دقال كي مصر يا سير يا يسقطنا يا إسرائيل نحبري مركيو دماضي
iyadoo Israa'iil dhulkii ay hore u haysatay mid ka badan qabsatay oo Qaahiro u jirta 60 mayl oo kaliya Dimashqna u jirta 25 mayl waxa la saaray wax loo yaqaano Independent Commission Inquiry oo ah khubaro madax bannaan oo sidii wax u dhaceen baadhitaankii waxay ka soo saartay initial report golaha baarlamaanka ee Israa'iil iyo xubeelaha kale qusaysaba loo gudbiyay arrintaas waxay keentay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Golda Meir ay iscasishay wasiirkii gaashaandhigga ee ahaa General Moshe Diyaano uu iscasilay abaanduulihii guud ee ciidamada Israa'iil David Elser ninkii loo odhan jiray wuu iscasilay oo konton jiri laba sano dabadoodna isaga istilay bareesharka intaa leegay dawladii dhammayd ee Israa'iil u dhacdayna wuxuu ahaa sideeba u ogaan weydeen goor hore duulaanka Israa'iil lagu soo qaaday waxa kale oo lagu qabsaday inaan wasiirka gaashaandhiggu awaamirtii loo baahnaa bixin iyo inaan taliyaha ciidankiisii hawlgelin ayaa ninka generaalka Israa'iil isu asilay naftiisana u gooyay maanta 2023 baynu joognaa konton sano kadib reportiskii bariga Israa'iil laga diyaariyay sirta ahaa oo dhan baa la soo bandhigo dunida oo dhan laga akhrisan karaa innaguna adduunyadeenu la mid lahay maanta waxay ahayd inaad saarto commission madax bannaan oo wixii qaranka ku dhacay baadha waxay ahayd inaad ciidamadii tagto waxay ahayd inaad ummaddu waxay isweydiinayaan ka jawaabto may ahayn inaad guddi u saarto khilaaf dhammaaday inan yaroo qayb ka ahaa arrintaasi annaga waxay noogu muuqataa arrin dee la amaaro oo lama fadhiyaa waxaanu ku leenahay madaxweyne arrimuhu siday mudnaanta u kala leeyihiin u kala sii inankan yaree komishaneerkaana faraha ka qaad guddidan aad saartayna jooji guddi qaran oo arrintii waddankan ku dhacday baadhana samee komishankana u sheeg inay waajibkooda qabsadaan iyagoo isku duuban khilaafkii ummaddani ka baxdayna dib ha ugu celini intaa kadib mudane madaxweyne haddaanu nahay deegaanka beriga Hargeysa golaha wasiirada waxba kuma lihin waa xukuumaddii koobaad ee weligayaana wasiir ku lahayn wasiir ku-xigeen kuma lihin agaasimo guudna kuma lihin meelaha mashaariicda lagu qaybiyo qarankoo dhanna waanu ka maqannahay waxa noo dheer dhammaan wasaaradahaaga heer gobol hal isu dawo kuma lihin arrintaasi waxay keentay in mashaariicdii la qabanayay horumarinta ahayd oo dhan aanu ka qadnay hal riigna looma qodin weligayo wadooyinka waddanka ka socda ilaa bari guntii ilaa galbeed guntii hal mitir oo laamiyana looma sameeyo waxaaba qabiyaa oo aan halkii laga qaadin dhagixii siiraan iyo diinqal dhigay waxaa intaa nagaga daran iskuulkii saba wanaag caasimadda degmada ku yaalla waa naga dunsan yahay 3 sannadood iyo 4 sannadood buu dunsan yahay magana tiirar baa saa u taagan siduu dargad yahay xaruntii degmadeeda waxaa naga dunsan iskuulkii dhakhtarkii aanu dhisanay saba wanaag waa naga xidhay kii annagu aanu dhisanay 29 waa naga xidhay iskuulkii badar wanaag waa dunsan yahay kii ballashare waa naga dunsan yahay caafimaad shaqo kuma lihin biyo shaqo kuma lihin tacliin shaqo kuma lihin intaasoo dhan iyadoo ay jirto waxaanu nahay deegaanada mushaahidiinta ee sida qoolayda iska ka dul tuban ee saasun ku eegaya ha jabinta ku haya madaxweyne markaanu intaasoo dhan kaaga samirnay markaanu xukuumadda daqiiqadiisa kaaga samirnay inankaa yaree komishaneerkaa waxayna tusaysaa inaad uga daba timi inaad tiri miskiin baa miskiin la fuula leh waayo waxaa jira deegaanada Soomaaliya qaaraan saaba weegin sax iyo kala toona iyo qaaraan lakadoodaba ka dhaqaaqood madaxun kaga taagantay waxaan ku leenahay madaxweyne halka laga garaacayo ee ilaahay ka haystaa waxa weeye dib u dhaca iyo cadaalad darrada deegaanka isaaq arrin ku timi waxaan ku leenahay bal ilaahay ku sii daayo inankaa yaree komishaneerka faraha ka qaad ugu dambeyn waxaad sheegtay inay tahay la baaro oo ay wixii ciidanka qaranka ku dhacay oo weli waxba laga soo saarin idinku waxaad tihiin golahii wakiilada adigu waxaad tahay gudoomiyihii guddida arrimaha gudaha miyaanay awooddaada inaad u yeedho taliyaha ciidanka qaranka wasiirka arrimaha gudaha ka gaashaandhigga oo la xisaabtantaan oo weydiisaan waxa ku dhacay idinka laftiinu intaad sugaysaan xukuumadda midda kale meedahay inaad ku daba gashaan fulinta maadaama tiin sharci dejintii wallaahi waa su'aal wanaagsan arrinta ku saabsan wada shaqaynta wasaaradaha iyo
guddiyada waxaan u gudbinay gola weynaha golahaana go-aanay tahay inuu ka gaadho inaan xukuumadda wasaaradaha ka tirsan iyo golaha guddiyada aanay wada shaqayn oo guddiyadoo dhami ka cabanayeenna waad og tahay arrimahan oo kalena waa arrimo aad dee maaragtay ahamiyad weyn u leh xukuumaddaanu ka sugaynay inay tallaabooyin qaado inay golaha report soo siiso inay ka guurtida siiso inta qaranka wuxuu ku dhacay loo sheego dee haddii maanta bil baa la marayaa golaha ilaa iminka su-aalaha looga jawaabi waayena dee shirgudoonka iyo goloweynaha ay u taallaa inay xukuumadda ka dalbadaan sida wuxu dhacay in looga jawaabo hore waxa uu sheegtay in wasiirka arrimaha guduhu uu diiday inuu idin yimaado arrintaasi xaggee ku dambeysay waxaa u dambeysay bulshada ugu dambeysay idinku yidhi golahan horgeyn wasiirka daaqiligu sidii xilkaa loogu magacaabay golaha wakiilada ma hor imaneeyo shirgudoonkuna wuxuu ballan qaaday inuu dee u yeedhayo dee baryahaan anu meel ka hadlayba anu ma arag sidii waddanka wuxuu ku dhaceen meel alla meelu jaaniya dhibdhigaan war mahaye dab commissionka shirgudoonka ayaa raadin doona axmed doolhon cable t v hargeysa